munaasabadani ay jaamacadda Alfa u qabatay ardayda sanadkani ka baxaya kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Dufcadani ka baxaysay jaamacadda Alfa ayaa noqonaysa tii toddobaad waxaana kala soo qayb galay qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda, siyaasiyiin, aqoon-yahan, dhalinyaro, ardayda jaamacadda Alfa iyo marti sharafaad u tiro badan. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiraxmaan Maal. waxaa qiimo iyo qadri weyn noo ah maanta inaad nagala soo qayb gashaan xafladda qiimaha iyo qaayaha badan ee ay ku qalin jebinayaan difcaddii toddobaad ee jaamacadda Alfa Hargeysa oo tiradoodu tahay 373 arday. ardaydaas oo ka kala socota 6 kulliyadood oo kala ah Social Science, Health Science, Business and Economics, ICT, Engineering, iyo Law. waxaa kale oo jaamacadda Burco faraceeda Alfa ka qalin jebiyey toddobaadkii hore 109 arday oo iyaguna ka kooban kulliyado kala duwan. waxaan hambaliyo iyo bogaadiba u diraya ardayda iyo waalidiinta maanta halkan fadhiya, ardayda oo soo maray jid dheer oo ay ku hiigsanayeen himiladoodii. maantana waxa weeyaan waxay u fadhiyaan halkan midhihii ay muddadaa dheer u soo halgamayeen. waxaana leeyahay hambaliyo. geestiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin. sidoo kale iyana waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka tirsan asxaabta xisbiyada dalka, wasiiro, agaasimayaal oo dhammaantood dhiirigeliyay ardayda jaamacadda. dufcaddii toddobaad ee Alfa oo ah jaamacad aan jaarnahay oo ilaahay uga mahadnaqayo inuu ilaahay guulo gaarsiiyo wixii soo socda sanadka dambana. waxaan ku rajaynayaa Alfa inay yeelato qayb weyn oo ka shaqaysa sidii farsamo gacmeed, dhakhaatiir, waxaasoo dhan loo soo rogi lahaa. waxaa maanta farxad aad u weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo. farxaddana wiigii hore waxaan joogay Burco, waxaanan ka qayb galnay aniga iyo mas-uuliyiin kale waxaanu ka qayb galnay qaybta Alfa University ee Burco. maantana alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan joognaa qaybtii Hargeysaan joognaa. Hargeysa iyo Burco iyo Berberaba qaybahaas oo dhan waxay ka mid yihiin Alfa. waxay ka mid tahay jaamacadaha Somaliland ugu yaraan waa 30 weeye. alxamdulillahi rabbil caalamiin. taariikh badan baa laga soo sheekeeyay dalkani halkuu ka soo bilaabay. waxaa laga soo bilaabay waxbarasho hoose. alxamdulillah maanta wax lagu faano weeye sida ay sheegeen mas-uuliyiin horeba. maanta halkan waxaan u joognaa inaan iraano hambaliyo. ardayda waxaan leeyahay waxbarasha laydin baray waa inaad dalkan ku soo kordhisaan waxbarashadii laydin baray oo aad noqotaan dad wax hindisi kara. waan garanayaa ardaydu waxay ka fakeraysaa xaggee shaqo laga helayaa, waxbaad baratay. laakiin waxaanu idin leenahay aqoontu waa inay iyadu shaqo abuurtaa. xamse cilmi, telefishinka caalamiga ah ee Universal, Hargeysa.